جاهدينta al-shabaab in askar ahaan ay ka guuleysatay wariyaheena Cabdullah Yaasiin Jaamac ayaa warkan inoo sii ambaqaday xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah waxa uu jeediyay khudbad dowladiisa iyo shisheeyaha soo duulayba niyadda iyo madaxlul ku reeqay taas oo ku muujiyeen xarakada shabaabul mujaahidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalidu ay isku dhexmilan yihiin oo isku aragti ka yihiin xasaradaha dalka ka oogan waxa uu qiray in qorigoodu cidda uu ku fooraro uu yahay dadka gudaha jooga ee aanay dad dibadda jooga la dagaalamaynin xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dad ugu yeeray cadow oo la jeedo xarakada shabaabul mujaahidiin ay muhiim tahay in lala dagaalamo madaxweynaha xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay bulshada dowladda federaalka ah uga dhowdahay awal waxay ahayd xuduudaha cadow soo duulay la garanayo soo socdo oo maxaan ku raadayay guurayo maxaa xuduudaha ka soo gudbayo laga ilaalinayo haday tahay xagga dhulka xuduudda haday tahay xagga badda haday tahay xagga cirka oo la yaqaano waa meeshaas soo maraya tir intaas uu leeyahay hadafkaas uu leeyahay la dhihi karo maanta sida hadda taliyaha ku warbixinayay waa isbedeshay arrintaas yani cadow gurihii ka dhashay wiilasheeni gabdhaheeni culimadeeni macallimiinteeni dugsiyada ganacsatadeeni shaqaalihiini dhammaan kasoo dhaxbaxay oo intaas isugu jira waaya cadowga maanta aan la dagaalamayna oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo la dagaalamay duurka cadowga maanta xoogga wuxuu joogaa dadka noocaas oo la dagaalama shacabka dhexdiisa ku dagaalama dadkii ku dhex jira ilaa cadowga dadka ku dhex jira marka qaabkii iyo fikirkii iyo maxaan ku raadaa doctrinkii oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dagaalamayeen way beddelay dagaalkii waa dagaalkii askariga xoogga uu dhimanaya uu dhaawacmaya waa muxuu ahaa duurka iyo maxaan ku dhibaato dhan ku jira laakiin haddana waxa isbedelay cadowgiya muuqaalkiisa isbedelay cid kasta oo khatar ku ah laakiin cadowgii noociisa isbedelay marka maxaana laga rabaa annaguna inaan annagana qaabka u shaqeyno isbedelnaana laga rabaa haddii aan farsamooyinkii xeeladihii caqligii fikirkii aqoontii aan u lahaynay inaan kula dagaalanno cadowgii hore ee la garanayay ee traditionalka ah ay noqoto in aan ku dagaalanno oo aan isticmaalno wax badan ma noo shaqeynaya waxaan u baahannahay marka inaan bedelno oo aan ku dagaalanno wejiga cusub iyo dhaqanka cusub iyo qaabka cusub cadowga uu yeesho haddii kan uu bedelmo u dhammaado oo kii la yaqiino awal ahay taariikhiga ay loo noqdahay waa ayadana waa halkeed waa haddana waa inaan dib u habeyn kale isu samaynaa oon isu diyaarina oon isu waxaynaa wuxuu sheegay in ama iyagu ay guuleysanayaan ama afka ciidda loo darayo waxaanu carabka ku adkeeyay inay muhiim tahay inay ku dadaalaan dalka Soomaaliya in laga sifeeyo waxa ugu yeeray inta fikirka al-qaacida aaminsan oo ula jeedo inta diinta islaamka si dhab ah u wada haysata asigoo shalay wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho kula hadlayay saraakiil iyo ciidamo ayuu sheegay inay iyagu dowlad ahaan yihiin koox gooni u taagan laakiin xarakada shabaabul mujaahidiin ay markasta ku dhex nooshahay bulshada sida gooryaanku uu dadka gudihiisa ugu nool yahay oo kale xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qalinka ku duugay in aanay quwadaha shisheeye waxba ka qaban karin awoodda shabaabka ee bulshada ku sii dhex fidaysa marar badan aan idin maanta waxa aan ku celiyo cadowga dabeecadaas la marka la dagaalankiisa waa inaan ka guuleysana ama waa inuu laga guuleystaa lama jiri karno dalkana kama wada dhex jiri karno niman laga guuleystay cadowga ka guuleystay dalka al-qaacida dib u qabsatay inaan noqono iyo niman dalka ka xoreeyay al-qaacida iyo mabaadideeda wixii aaminsan dalka ka nadiifiyo ka sifeeyo ka saaray inaan noqono labadaas isku keen barbar taalo meel dhaxo oo labada ka dhaxayso oo aan marnaay nooma furna si aan marka cadowga noocaas ee dadka ku dhex jira ee wiilka adigu dhashay guriga ka tagay uu ku jiro oo kii maxaan ku raadayay dukaanka ka tabakaayada meesha uu ku jiro oo maxaan ku raadayay kii macalinka dugsiga ay ku jiro oo laga yaabo kii yani nooc walbo bulshada ay ka kooban tahay inuu cadowgaas ku jiro nooc kasta ugu jiro mid qoraxaas soo dagaalamo mid isqarxiya asagoo naftiisa muxuu ahaaye diimeeya mid maxaan ku raadayay xog siiyo war u warama
mid jeedkiisa baasha ka soo bixiyo baashada ku taakuleeyo muxuu ay ku waxeeyo mid simbati u hayo oo qalbiga ka jecelo meelaha marka la sugu tagay yiraahdo ha waa sidaan waa maxaan ku yiraahdaa diintiida muxuu ahay la yeelaya waa farsamadaas cusub iyo xeeladaas cusub iyo qaabkaas cusub aan laga rabaa marka inaan la nimaado waxa la isku haysta ugu weyn ugu dagaalamay marka waa dadka annaga waxaan ka noqonay koox gooniya hadana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed aan leeyahay ciidanka maxay nabad waa yaani magacaan yeelanay identity aan la baxlay uniform gaar ahaan qaadanay waa gooniyan istaag kuwa kale waxay yiraahdeen maya annagu ma yeelin sidaas dadkaan badhaxgaleynaa parasite yaani darisku noole dadka ku dhex jiraan dadkiina marka reality dadka waa waxaan isku haysan haddii marka dadku aan annagu ku qancin weyn inaan u taaganahay ahdaaftaas waa weyn muxuu ahaay hooyadan Soomaaliyeed aan ayada iyo ilmaheeda iyo waxay haysato aan ilaalinayno u dhimanayn oo u dhaawacnayn oo u xuriyaamayno inay sidaa tahay haddii loo aan u tusi weyno u fahansi weyno ku qancin weyn waa ducsi annaga aan leenahay عدو كوكان عيوا أساس وعدوه مثل مجدها شاغنا يبا محوها عيدا كنية أساس وعدوه وكوكان عيوا وانت كعر حرى مكان مع حدوده العدو دي أول وقت معاني دبكا كل حجرنا هذا دقمدي فولدي وبدي دبكي حافظي دبكي كل حجرنا يوم أنا رمائنا كسول حسابنا وحان دحناه حقيقة عيدا مدى يعارمك وانا كالمين كرا دقالده ووين يبرد قوب دقال وانا لسيكرا لكن مثلا دغالku weynay marka la sii jibiyaba marka inta dhigtaanay waxay ku dhaxmilmayaan dadkii ajnabi ciidan oo na kaalmeynaa inta dadka ka soo dhaxtaari kara kalama yaqaan ma kala garan karo laakiin anagu waa kala garan karnaa waan kala naqaana sida aan ku heleynaa naqaana sida aan uga soo dhaxtaari karnaa dadka naqaana marka dagaalku wuxuu soo gaaray meeshii anaga noo gaar ahayd marka meeshii nala kaalmeyn karay oo caalamku na kaalmeyn karay inta badan وكي مدين وكي إيمان دونا مرد وكذا إيمان دونا يعني مهمة إلى ذا عالم كله يسوق المذاهب مرد ويران دونا لأن الدجال سوق الجمل سيس يمال أنا واحد بدنا نجد كالمين كان عالم طرف خد محن كور هذا تاكلين كروانا لسين كرا لكن حافظه دكان كإد عشر تيجا بل يرى عودة كوفي سكر لا بد كوفي في شباب كأ عالم كنا جمع سوق كالمين كرا نجمع سوق فارك دولة الفدرالك من مدحوينه رئيس الوزراء وزير حلبان إلى عسكري وحالوت في المماد دين السيال متكسر علوشي سيسير كيسو مكفكر يو لكن مدحوينه مركان وحاو ايديس سقوق جيو ودري شاطقنا كدغي ciidamada دولة الفدرالك وحاو شغي ان هبك iyo rasaasta ciidamada alla siiyo ay mujaahidiinta ka iibsadaan maadaama askartu ka fikirayaan buu yiri qaybta haasaadka hubkaas ayuu tilmaamay madaxweynuhu in askarta qudooda dib loogu toogto isla markaasina lagu dilo saraakiisha iyo madaxda kale ee dowladda federaalka arrintu raashin xumo ma aha rasaas la'aan ma aha hub yaraan la'aan ma aha yaraani waa iman karta mishaar la'aan ma aha waxay dowladdan haysta amheli kartay waa u soo leexisay xagga amniga iyo ciidamada baabuur ha lagu soo gado qoraya rasaas ha lagu soo gado uniform ha lagu soo gado laakiin waxaa soo dhamay waa idin sheegaan nama saacidayaan intaan rabnay waa kab wayna kaabi karaan nama saacidayaan masaal yar hadaan soo qaado uniformka askarta ee dalkaan timaadahay 90% dowladdu ay u timaadaa ciidamada gacantooda soo gashaa in yaro xeebaha meelo luqluq iyo shabaabku ay meelaha ka soo gataan ka soo degsadaan waa laga yaabaa inay timaado laakiin badankooda gacanta inuu ka baxaa bal eegad allahu ya ogaado meeqa sarkaan iyo meeqa askari oo ciidankeena ka tirsan oo wax ay bixiyaan u dhintay uniform oo dowladda ka xaday oo bixiyay shabaab soo gashay oo dilay bastoolad ay dowladdu lahayd ama rasaas ay lahayd oo bixiyay lagu dilay asaga yani eeg waxa sameynaysa yani waxa naga suurur inaan sameeyo maantood waa annaga gacantaan maxaan u sababtay intaas wiil yar oo maxaan ku raaqay jaadar wiil yar oo qayb jaadar oo inta si afar xabadood bixiyay ku badashay afar xabadood shabaab inta qaatay asii ku dilay maalinta iyo wax la mid ah عدك حسن شي محمود نوحة وغدنبية وربحنتي وإنو ديارية وريهنا عبد الله ياسين جامع مدعونا في أبدأ يسين أسكرت الدولة الفدرالك وحا وكلها الديي وقد الصومالي يستوى الشيء شعب